sheekadu waxa ay noo maraysay saxardiid oo yimid goobtii ballanta iyo nin madow oo u yeeray saxardiid. Haddaba maxaa dhici doona? Dhegaysi wacan. Markii aan dhankiisa soo eegay, waxaaba gacanta la iiga haadiyey tagsiga gudihiisa. Waxaa isku dayay inaan aqoonsado ruuxa iga gacan haadinayo ee ku jira gaariga dhexdiisa. Indhaha ayaa ku taagay dhinacii gaariga, hase yeeshee ma aanan aqoonsan ruuxii ii gacan haadiyey. Aniga oo damacsan inaan dib u majirto ayaa misana maqlay, saxardiid walaal macaan, maxaa ku helay? Ma i garan weyday? Waa warise. Markii aan maqlay intaas ayaan mar kale xaggii gaariga u soo dhaqaaqay. Waa gaariga nooca loo yaqaano Speed, oo ah nooca ugu badan gaariyaasha taksi ahaanta loogu adeegsado magaalada Nairobi. Daaqadii dhankayga soo xigta ayaa la iga furay. Soo gal walaal, see tahay? Ayay igu tiri. Waris, oo ahayd qofkii markii horeba ii dhawaaqay ee gaariga dhexdiisa iga gacan haadiyey, anna isma lurina inta tartiib gaariga u dhexgalay ayaan fariistay. Haye saxardiid, ma soo raagay mise waqtigii ayaan ku imid? Ayay markiiba hoosta iga gelisay ayada oo dhoolla cadaynayso. Maya waris, inta iri ayaan dhinacii kale u sii jeestay. Nin xoog weyn oo wada ka ahaa gaariga ayaa markiiba inta marsho ku tuuray, si xawli ah gaarigii u dhaqaajiyey. Cabbaar haddii aan soconnay, waxaan gaarnay meel lagu magacaabo Jaffa, oo ah meel laga cabo kafayga dadkuna ku nastaan, taasoo ku taala bartamaha magaalada. Waxaan fariisanay meel gees ah oo dhabarka dambe ku hayso shabaq ay isku maran yihiin fiilooyin la isku xiray. Waxaana fiilooyinka ku tidcan dhir midabo badan ka kooban. Laan kasta oo dhirtaas ka mid ah waxaa ku jirta nalal mar walba nooc isku gudbinayo. Dhinaca geesta ee midig waxaa naga fadhiya 2 ruux oo caddaan ah, oo midkood koofiduu sito ay ku sawiran tahay calanka Ingiriiska. Dhanka kale ee bidixo waxaa naga xigay 4 ruux oo 2 ka mid ah ay tahay Indiyaan degan dalka, 2 ruux oo kalena ay yihiin Kenyaan. Dadka meesha fadhiyo dhammaan waxaa iskugu baxaysay sheeko. Hadal badan kama yeerayo, dadkuna iskuma mashquulayaan. Qolo walbo waxa ay ku sii jeedaa danaheeda. Haddii aan goobtii fadhinay qiyaas muddo nus saac ah, sheekooyin badanna noo bilowdeen, ayaa waris si iskeeda iskaga qaaday indho-shareerkii ay wadatay. Aniga oo ka codsan, waa gabar qurux iyo haybad Alle u dhameeyey. Ninkii indhayaha saarana dhaayaha kama qaado. Waan is celin waayey. Markaasaan ku iri, maasha Allah, quruxleydeena Allaha noo kaadayo. Waris iyo aniga habeenkaas waxaana dhex maray sheekooyin aad u xiiso badan oo runtii iskugu jiray qosol iyo kaftan. Qof waliba markiisa ayuu qaadanayay sheekada aan u sheekaysanay, sida 2 ruux oo aad malaynaysid inay hore isku yaqaaneen. Waxa ay iga wareysatay noloshayda, anna sidoo kale waxa aan ka wareystay nolosheeda iyo muraadka ay Nairobi u joogto. Waxa ay ii sheegtay inay halkan joogtay muddo ka badan 5 sano, markii horena ay ka timid Soomaaliya. Waan weydiiyey in ay tahay xaas iyo in kale, hase yeeshee waxa ay igu jawaabtay qosol ayada oo raacinayso, aboow adigu maxay kula tahay oo aad igu qiyaasi lahayd haddaan tijaabiyo aragtidaada. Inta si dhaba u eegay oo aan dhoolla cadeeyey ayaan si kaftana ku iri, waxa ay ila tahay qof adiga oo kale ah oo quruxdan dabiiciga Rabbi ugu deeqay magaaladana joogo in ay madax bannaan ahayn. Inta qosol dhag ka siisay ayay i tiri, saaxiib, tijaabadaas waad ku dhacday. Cabbaar yar inta aamustay ayay ii sii raacisay, dumarka la qabo astaamo lagu gartay miyay leeyihiin? Kolley waxay ila tahay laga yaabaa. Inta ku iri,
ayaan waxaan weydiiyey haddii aadan lahayn nin, miyaad leedahay saaxiib? Intay indhaheeda igu soo taagtay, haddana muusootay, ayay igu tiri hadal ay hadal-haysi ka dhigteen gabdhaha maanta nool, dhagahaygana ay ku daaleen, kaasoo ah: adigu ma kula tahay in baledkan laga helayo nin nafteeda lagu aamino? Runtii, markii aan warkaa ka maqlo gabdhaha, waxaan is iraahdaa, talow duulka ma meel baa wax loogu sheegay, mise waxa ay qayb ka tahay dardaarankii ayeeyadood Caraweelo? Aniga oon weli ka jawaabin su'aasheeda ay i weydiisay, ayaa horteena waxaa soo istaagtay gabar. Haddaba la soco dhagaystaheena sharafta leh, qaybta 3 iyo